السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنو وناكسن أصحابتين ميل كستوات جوكتان كسو دوادا برنامج كين عيارها waxaanu ku eegi doonaa qodobo dhowr oo ku saabsan dunida kubadda cagta. haddii aad nagu cusub tahay daawada fadlan subscribe noo saar siina share saaxiibadiinana la wadaaga dhammaantiiba. aanu ku bilownay Manchester City oo bangiga u joogaysa Mohamed Salah xil wakiilku waxid uu heegangeliyay Citizen. Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay ka fiirsan doonto inay u dhaqaaqdo xidiga Liverpool ee Mohamed Salah haddii weeraryahanku uu ku guuldareysto inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda. 29 jirkan ayaa haatan xaqiijiyay inuu sii joogi doono Anfield xilli ciyaareedka soo socda, laakiin mustaqbalkiisa fog ee kooxda ayaa weli ah mid aan la hubin maadaama uu heshiiskiisu haatan dhacayo 2023. Salah ayaa weli heshiis cusub u saxiixin kooxda inkastoo uu wada hadallo la qaatay kooxda muddo sanad ah, waxaana la sheegayaa inuu xidigii hore ee Chelsea uu furan yahay inuu ku biiro koox Premier League ah haddii uu kooxda isaga tago xagga dambe. sida laga soo xigtay wargeyska Marca, wakiilka Salah ayaa heegangeliyay Manchester City xilli ay kooxda Pep Guardiola diyaar u tahay inay u dhaqaaqdo xidiga reer Masar. wararka ayaa sheegaya inay Man City diyaar u tahay inay bixiso lacagta uu Salah dalbanayo, isla markaana diyaar u ah inay u dhaqaaqdo xidiga haddii uu heshiis cusub u saxiixi waayo kooxda. dhanka kale, Gabriel Jesus ayaa lagu soo waramayaa inuu doortay kooxda uu ku biirayo maadaama uu ka tagayo kooxda Manchester City. Gabriel Jesus ayaa diyaar u ah inuu isaga tago kooxda Manchester City kuna biiro kooxda Arsenal, inkastoo ay kooxda Arsenal ka ciyaari doonto Europa League xilli ciyaareedka dambe. wargeyska Daily Mail ayaa sheegaya in weeraryahanka reer Brazil ee Jesus uu doonayo inuu u dhaqaaqo Arsenal oo uu dib u la midoobo ku-xigeenkii hore ee Manchester City Mikel Arteta. Gabriel Jesus ayaa xidig qaab ciyaareedkiisa la isku haleyn karo tan ilaa markii uu ku biiray kooxda Manchester City sanadkii 2016, isagoo oo dhaliyay 95 gool 236 kulan oo u saftay. sidaas darteed, Gabriel Jesus ayaa go'aansaday inuu ku biiro kooxda Arsenal inkastoo uu dalab ka helay kooxda Tottenham oo siinaysa fursad uu kaga ciyaari karo Champions League xilli ciyaareedka dambe. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullahi